waxaa lagu soo gabagabeeyay xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Mayfair barnaamij sanadle ah oo lagu taakuleeyo sanad kasta dadka muslimiinta ee degan dalkani Koonfur Afrika gaar ahaan kuwa ajaanibta ah ee dakhliga soo gala bishii aanu ku filnayn qoyskooda. barnaamijkan oo dadka loogu qaybinayo deeq ka koobneed raashin qutul daruuriga ah ee inta badan loo baahan yahay ayaa waxa ku deeqay muslimiinta hantida leh ee degan wadankani Koonfur Afrika waxaana si wadajir ah u daadihinaya bixinta raashinkani hay'adda caalamiga ee Al-Imdaad ee xarunteedu tahay dalkani Koonfur Afrika iyo xarunta Soomaalida ee keedka iyo waxbarashada Islaamiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan SIRIC oo fadhigeedu yahay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. dadkii deeqdan la guddoonsiinayay oo ka kala yimid wadamo badan oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Rwanda, Burundi iyo qaar kale badan ayaa waxa wajiyadooda ka muuqatay inay ku faraxsan yihiin deeqdan ka soo gaartay walaalahooda muslimiinta ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika. qaarisiyaad baadil oo isagu wakiil u ahaa hay'adda Al-Imdaad kana mid ahaa dadkii joogay goobtan lagu bixinayay raashinkan ayaa waxa uu sheegay telefishinka caalamiga Universal TV in ay sanad waliba markii ay bisha Ramadaan soo dhawaato ay bixiyaan raashinkani uusan ku koobnayn magaalada Johannesburg oo kaliya ay gaarsiiyaan dhammaan 9 gobol uu ka kooban yahay dalkani Koonfur Afrika. waxaa sidoo kale goobta ay raashin bixintu ka socotay ka hadlay agaasimaha guud ee xarunta macadka SIRIC Sheekh Cabdulxakiin Ismaaciil Cilmi isagoo markaasi sheegay inay tahay sanadkii shanaad ee magaciigu waxa waaye Saciide Maxamed Axmed waxaynu ku noolahay magaalada Johannesburg xaafadda la yiraahdo Mayfair ee sida badan Soomaalida Islaamku badan yihiin waxaana hay'adda raashinka bixisay aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa although ay isugu jiraan Soomaali hooyooyin dhibaataysan iyo kuwa aan sideedaba normal iska ah balse sadaqadu waa mid aan ku faraxsanahay. Al-Imdaad ayaduna aad iyo aad ay ugu faraxsanahay iyo SIRIC labada hay'adood. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are presently here at the pre-Ramadan hamper distribution of the Al-Imdaad Foundation, wherein people receive high-valued food parcels just before the holy month of Ramadan. And the families who are the recipients of these food parcels look forward each and every year for these parcels so that they may have something to have in the holy month of Ramadan. This project is carried out across the country and to very, very poor communities like this community and these. Alhamdulillah Rabbil Alameen. MashaAllah wa barnaamijyadii aan ummadda u qaban jirnay sanad walba xaruntan Soomaalida ee SIRIC alhamdulillah ila kun family oo Soomaali ah iyo familiyo badan oo kale oo wadanka aan u dhalan laakiin dad muslimiin ka yimid Tanzania qaar Malawi ka yimid qaar Zimbabwe ka yimid Mozambique meelo fara badan alhamdulillah sanadkan ayana maaragtay hambaradii Ramadaanta wixii loogu tala galay familiyadii adigu iska yara maaragtay hooseeyay waxa soo gala ayaan ugu tala galnay aad bana ugu faraxsan yihiin wana rajaynaynaa insha Allah ta'ala waa sanadkii shanaad ee aan qabanno inaan horena hadana maaragtay u sii wadno. si kastaba ha ahaatee gabagabadii munaasabadani raashin bixinta ahayd ayaa ku soo dhamaatay jawi aad u heersareeya iyadoo uusan wax buuqaya rabshado ah goobta ka dhicin. Cabdinaasir Soomane, telefishinka caalamiga Universal TV, Johannesburg.